gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda dhowrista tayada Somaliland Cabdiwaasic Maxamed Yuusuf ayaa xaflad soo dhaweyn loogu sameeyay xarunta dhowrista tayada ay ku leedahay magaalada Hargeysa. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf, gudoomiye ku-xigeenka komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, xubnaha komishanka dhowrista tayada Somaliland, xildhibaano iyo marti sharaf kala badan. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay agaasimaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Maxamed Geedi Caynaanshe, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Liibaan Ismaaciil Cabdilaahi iyo xildhibaano iyo xubno ka mid ah komishanka dhowrista tayada Somaliland iyo madaxa kastamyada dhowrista tayada Somaliland Dayib Ibraahim Cali. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa soo dhaweynta gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada mudane Cabdiwaasic Maxamed Yuusuf oo run ahaantii maanta aan xafladda aynu fadhino inaynu ku soo dhaweyno xafiiskan hay'adda dhowrista tayada xaqiiqatan ka maxamed ahaan ama agaasimaha waxaan aaminsanahay hay'addani inay lafdhabar u tahay jiritaanka qaranka cusub ilaahay hawshan hay ku asturo sidii jiilka cusub ee aqoonta leh ay dalka u hogaamin lahaayeen tiibay daba socotaa madaxweynuhu kaga dhabeeyay runtii hay'adaha dawladda iyo wasaaradahaba iyo agaasimayaasha guudba oo wada dhalinyar markaa tamar badan iyo culays badan baa laynooga fadhiyaa maadaama madaxweynuhu gartay in dhalinyartii dalkan wax ku baratay dalkan ku barbaartay duruufihiisa iyo xaaladihiisaba ogeyd gacanta in loo sii daayo fikirkooda iyo taladooda la yidhaha ku meel mariya wakaasi wadankii مسؤولية الغولية أو مسؤولية عصب ونعصب سينا أنكم عصبين قف هذا أكاديمي هاي والجامعات تحفظ اليوم وحكفك على هاي الشيء والطيادة وين كان يحكوا نصيب وناك بيكون تعديها ويحد شعرين بالو دحر marka horeysa waxa uu leeyahay xafladu day ujeedadeeda waxay soo dhaweynaa Master Cabdiwaasic oo loo soo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada laba qodob ma rabaa inaan ka hadlo qodobka koobaad waxa weeyaan Cabdiwaasic aan aqoon gaar ah u leeyahay oo aan runtii aad ugu faraxsanahay inuu nagu soo fiiro sababtuna waxa weeyaan waxaanu soo wada shaqeynay ololihii baanu team wada ahayn ololayaasha nooca marka la isugu yimaadana waxa weeyaan waa meelaha ugu adag ee bani aadamku ka shaqeeyo waa meelaha marka la wada shaqeeyo qof walba wuxuu yahay soo baxdo waa meelaha raggu isku barto gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda dhowrista tayada Somaliland Cabdiwaasic Maxamed Yuusuf oo isaguna goobta ka hadlay ayaa yiri xilkan aniga maanta la ii magacaabay horta xilkan waa xil aad iyo aad u culus dadku hay'adda dhowrista tayada oo loo yaqaan quality control wax ciyaara iyo wax yar ma waxyaalaha cajiibka ah waxa weeyaan adduunka marka tagaysid waxa jira waxa la yiraahdo ISO cid walba waa la baaraa virus baa laga baaraa cuntooyinkii baa la baaraa dhismayaashii baa inta dabaqyada aan la dhisin ayaa blueprint la keenaa oo la qiimeeyaa imise sano waxa la jiri karaa waxaa jirta ma taqaan dawooyinkeeni oo drugskii baa la eegayaa wax badan ma taqaanay macdalagii dalkeeni ka soo baxayay seed tayada waa ina ma taqaanay dalkii loo keenaa dhinaca kale gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf oo isaguna goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay'adda dhowrista tayada Somaliland. waxaan soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka cusub Cabdiwaasic waxaan kugu soo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeen hay'adda dhowrista tayada waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo niyad samid iyo gacmo furan shaqaalihii shaqaale weynihii intii ugu badnaydna way fadhiyaan komishineeradina Cali baa jooga hay'addan sida la sheegayba waa hay'ad aad iyo aad curdun u ah oo in muddo ah jirtay muhiimadda ay leedahay hay'addan waa laga soo sheekeeyay waxaan ku faraxsanahay muhiimadda ay leedahay adigu inaad fahansan tahay waayo qofku markuu waxan fahansan yahay ayuu isaguna wax ka qaban karaa marxalado badan baa hay'addu ay soo martay alxamdulillah sanadkan 2020 waxaa noo qorshaysan hay'addu insha Allah inay halkii ay ka sii ay joogtay inay laba laab ay sii laba laabto shaqadii hay'adda qaranka u egmaday qorshayaasha noogu jira waxaa ka mid ah strategic plankii oo implementationkii si aynu galay shanta sanadooda soo socda hadii la ka dhigo
waxaa qorshayaasha noogu jira laabkii iyo dhismihii laabkoo socda dhamaystirkiisii iyo qalabkii la keeno waxaa qorshayaasha noogu jira faafintii iyo dhamaystirkii heertayeedkii ama waxa la yidhahdo standardka waayo shaygan ama waxaan kasoo wada hadlaynay dhammaan mas-uuliyiinta ay soo taabteen ee tayada la baaraya marka horeysa waxay u baahan tahay standard ama waxa la yidhahdo heertayeed ku faraxsanahay cabdiwaasic inuu academic ama research background leeyahay waayo waxaa jira oo intaa nolola yimaada waxaa la leeyahay dalkii waxaa kusoo batay cancertii waxaa kusoo batay muxuu ahaa gastrigii waxaasoo dhamina waxa weeye waa cuntada iyo dawada iyo sheegan taana ma ogin inagu waxaan u baahnay inuu iska kaashano academic muxuu ahaa research wasaaradda horumarinta caafimaadka oo mas-uulka ah caafimaadka bulshada iyo hay-adda tayadu in la sameeyo cilmi baadhis waxani waxay leeyihiin cause iyo effect maxaa cause gareeyey effectkii muxuu noqday ugu dambeyn xafiiska iyo baabuurka xafiiska gudoomiye ku-xigeenka cusub ayaa si rasmiya loogu wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka cusub ee hay-adda dhowrista tayada somalilan mudane cabdiwaasic maxamed yuusuf maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan tv-ga caalamiga bulsho hargeysa ma og tahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxaa ka mid ah Afrika, Asia, qaybo ka mid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in leeg kadib kubaadh frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dhiishka kubaadh frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin